waxaanu maanta bilowno safarkii badmaaxa qaybtiisa koobaad. sheekada safarkii badmaaxa qaybtii koobaad. sheekadaani waxay noo ahaa doontaa mid raxan ah oo ilaahay ka raali ahaado. waxaan go'aansaday in aan qoro sheeko la yidhaahdo safarkii badmaaxa. sheekadaas oo ahayd mid aad iigu soo laalaabatay, aadna ii cajabisay maqalkeeda, inkastoo aan xog dhammaystiran ka helin markii hore. markii dambe waxaan go'aansaday inaan u safro oo aan safarro u galo, raadiyana meesha aan ka heli karo sheekadaasi. waxaa laga tilmaamay niman badleeya. badleey waxaa laga wadaa nimanka badda ka shaqeeya, oo dad qaar ka mida ay sheekadan goobjoog u ahaayeen. waxaan go'aansaday inaan nimankaas horaysto. waxaan ka tegay meeshii aan joogay, waxaana aaday halkii laygu sheegay nimanka. waan u tegey nimankii oo booskoodii ayaan ugu tegey. waxaa iska baray nin la yidhaahdo faarax qadhooyo. habeenkii aan u tegeyba waxay u siiyey busto weyn oo aan dhaxanta ka galo. halkii ayaan joognay. habeenada ka mid ayaan ka codsaday inuu iiga warramo, hase yeeshee wuxuu yidhi maalinta berriya ayaan kaaga sheekayn doonaaye. subaxdii baa layska shaqo tegayo, maalintii 4 saac camal baa laysku soo laabtayo. waa noqday meeshaan iska joognay. markii la qadayno wuxuu raasay meeshii uu seexan lahaa. nin martiba ahay meel baa laga tilmaamay leyraalka seexo. halkii markaan iska tegay oo xoogaa hordayay baa mar qura arkay qofkii soo dul istaagay oo busto weyn uu sita dhulka furtay. haddii aan fiiriyey waa ninkii faarax qadhooyo ahaa. faarax qadhooyo isla markiiba waxaa yidhi bilow sheekadaniyo liiga waran dhantaada sidaa. laakiin marka hore aniga ayuu su-aal horta wuxuu yidhi inuu su-aalka markaan ku fiiriyey sida aad doonta u caawinayso, qalabka doonta aad u diyaarinaysid iyo wixii saa fiirfiiraysa. markaan arkay waxaan aqoonsaday nin hore badleegayo badda ka shaqay jira inaad tahay liiga waran. waxaa yidhi in yar aan jooga mooye aad ugama shaqay jirin, aqoon dheer ma malihi. laakiin nin iska hawl fududan ahayoo kulahaas un iskaga dhex jiro. hawl meesha laga qabanaya haddaan arko dadka shaqaday qabanayaan fiiriya isla markiina waa ka mid noqdaaba. marka taas weeye mooye aqoon dheer ma malihi. adiga qisadeeda iiga warran. taada ayaan u imid meeshaan, doonayaan inaan dad badan oo i dhagaystaa, qaarna qoraalkii u akhristo faa'iideeye. waxaa iiga sheekeeyey qisadii aan doonayay, ahna tan hadda aan kaaga sheekay doono, kuna qoran buugga safarkii badmaaxa la yidhaahdo. waxba yaan hadalka kugu dheerayn, uga dheereeyee waxa aan weydiiyey wixii ugu yaabka badnayd inta uu badda ka shaqaynayay. waxa uuna igu yidhi runiyo haddaan kaaga jawaabo su-aasheedaas oo aan kuu sheegay wixii ugu yaabka badnayd inuu wakhtigu kugu yaraadaa, amase fadhisalaad ku fadhis ama weysaa ma aha mid sahlana oo baaldhararka badatay. waxaan ku oranayo sal fadhigu oo adkaysi badanna waan leeyahay. nin wax soo doonayo qisa doonan waa ahay, dad dhegaysto qisada anigana igu wakhti geliyana waan leeyahay. eenaho qisadii bilaab. waxa uu ku bilaabay qisadaydu waxay ku bilaabanaysaa in soo socota. waxaan ahay 25 sano jir xooggan. waxaan ka shaqay jiray weligiiba iskaga noolay da'daas ku soo gaaray kalluumaysiga iyo qalabka badda oo iyo ku shaqaynta qalabka badda, matoorada iyo shabaagaha ee qalabka badda looga shaqeeyo. maalin maalmaha ka mid a ayaa waxaa ii yimid 3 nin oo dhallinyaro ah oo aan isnaqaano, isku beelna aan nahay. qaar ka mid ah ilmaadeerana, 2 ka mid ilmaadeerana. waxaa iigu soo bandhigeen qorshe markaas lacaga badan lagu qaadanayay, balse anigu aana warba u hayno, micnaha aana weligiiba damac iga gelin. hase yeeshee ii fiicneed inaana damacaas oona i gelin. wixii kuu qoran waa wax kugu dhacayee wiilashu waxay soo bandhigeen in aan ka qayb galo barnaamij markabta lagu soo afduubanayay. waxalaalii xaaraan wuxuu ahayba aanan waxba ka sheegi karin. hase yeeshee aniga haddaan u fiirsaday xaaraan ilaa ah hadda se markaas aqoon gooni aan oo lahayn. kolayse wixii kuu qoran korseegi maayaane barnaamijka siday igu wadeen waa iga dhadhaciyeen. waxaana go'aan ku gaaray inaan tago oo aan ka qayb qaato barnaamijkaas, maadaama ahay dadka lagu jecel yahay oo wadista doomaha aad ugu fiican. waa ay i wadeen, waxa ayna ii geeyeen ninkii milkiilaha ahaa dadkana qalabeynayay oo alleel fadhi barnaamijyadaas. ninkaas wuxuu bixiyaa lacagta markabka lagu weerarayo, hubka markabka lagu weerarayo, doomaha qalabka weerarka oo dhan ka qayb qaataa. waan ka aqbalay. waxa ay ii geeyeen qalabkii lagu shaqatigi lahaa. waxaana la yidhi nin waa lagu baroobaynayaa, ijaabaad maraysaa. ijaabadaasi waxay caddaynaysaa xirfadda aad sheegatay inay run tahay in kale. isla markiina wuxuu amar ku siiyey qaar ka mid ah raggii aslana. waxaa u yidhi aawa hebelna aawe. si degdega ayay isu istaageen 2 nin oo meel dhow taagna. waxayna yidhaahdeen maxaa aan ka caawinaa mas-uul. waxa uu yidhi waxaan doonayaa inaad ninkan aad iisoo tijaabisaan
inta aad hebel ugu tagtaan oo markabka baroosinka loo qaado kadibna ha la wado markabka. ninkana waxaad u dhigtaan doon dheeraysa oo ugu yaraan 60 kabaale saaran yahay. iyana soo duuba sida uu xalladeeyo iyo sida uu caashaqo. caashaqada waxaa laga wadaa dheega loo saaro ama dhinaca loo saaraya caashaqadeeda. ragga markabka saarana kabtanka ha ku amraan inuu iska ilaaliyo doontaas baaruudda holacda ha lagu soo tuuro si aan u ogaado qaabka uu ka wacdo ama ugu banneeyo. waxaa laga yaabaa in marka la shaqo tago ee markab la arko oo weerarka lagu bilaabo oo markabku iska caabin xoog badan la yimaado oo uu baaruud iyo qaraxyo uu soo tuuro. sida ugu gambiyo iisoo duuba raggii waxa ay ku jawaabeen waayahay mas-uul ee qaadka meel soo saar. isagiina waxa uu yidhi waayahay. sidii ayaa gaarigii igu soo saaray heebtii oo 18 kiiloomitir inoo jirtay ayayna nimid. raggiina sidii la soo amray ayay sameeyeen. anigana taasi xanuun bay iguma hayn waaba shaqadayda. tijaabadii ayaa igu bilaabatay oo intii aan gaariga ka degayay ayay intay qolo hoos ka direen ayay ku amreen in ay matoorka dabka ka xiraan. sidii ayaan leelay oo matoorkii ayay dabka ka xireen. markii aan xeebta imid ayay igu yiraahdeen kici matoorku waxaa laga kiciyaa xarig la jiidayo nishiwa loo yaqaano. gacanta inta lagu soo qabta hal mar la isla baaciyo. xariggaas gacanta ayaa lagu soo qabtaa hal mar ayaana la isla baaciyaa oo lasoo jiidaa. balse maba kacayo matoorku in ay wax qaldan yihiin waan dareemay. beelkii ayaan ka qaaday oo waxa aan fiiriyey meeshii ugu horraysay oo cilada ka filayay mase noqon. markii labaad ayaan fiiriyey dabka waxbaa ka qaldan. maadaama aanin muddo dheer ku howlanay isla markiiba waan hagaajistay. intaas ayaan ku kula inaaqay koobaad qaybta labaad iyo marka badda fuuli doon.